بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامت كدب إن شاء الله waxaan idiin soo gudbin doonaa aayad kale oo ka hadlayso towbada. walaalayaal, ma ogtihiin ciddii ilaahay subxaanahu watacaalaa u toobad keeni weyso in ay tahay daalim ama daalimad. sidaas darteed ilaahay subxaanahu watacaalaa wuxuu dhahay, waman lam yatub fa ulaa'ika hum daalimuun. ciddii aanan allah u toobad keenin oo aanan xumaanta ka noqonin, ilaah cafintiisa iyo dembi dhaafkiisa aanan doonanin, waxay ka mid tahay daalimiinta. sidoo kale nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu dhahay, innahu man lam yas'al illaahu tacaalaa yaqdibu calayh. qofkii aanan allah subxaanahu watacaalaa wax su-aalanin, dembi dhaaf warsanin, khayr warsanin, ilaahay subxaanahu watacaalaa qofkaas ugu caroodaa. nafteeda iyo naftiinaba waxaan allah ugu baryaa in markaasi uu ka badbaadiyo carada ilaahay. marka walaalayaal, waxaa loo baahan yahay xumaanta inaan kusii dhegnaano ma ahan, waa inaan cafin ilaahay doonanaa si markaasi toobadeena uu naga aqbalo insha allah. nafteeda iyo naftiinaba sidaas ayaan ugu dardaarmayaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.